Asalaamu calaykum dhammaan asxaabta ku xiran Amjad Academy. Kusoo dhawaada mar kale iyo falanqeynteeni isbuucla aheyd. Isbuucan waxaan ku fiirin doonaa ama aan ku analyse gareyn doonaa lacagaha aan isleenahay waxaa laga abuuri karaa fursad, kuwaas oo ay ka mid tahay Goldiga, Euro New Zealand, Pound USD, New Zealand USD, Euro Yen iyo New Zealand Swiss francs. Haddaba waxaan kaa codsanaynaa haddii aad channelka ku cusub tahay inaad subscribe saartid, siina share gareysid, nagu soo biirtid barteena aan ku leenahay Telegramka ee Amjad Forex Academy. haddii aan ku bilaabno DXY-ga ama dollar index-ka sidana caadada aheeday, mar walba waxaan ka bilaabnaa inaan fiirino muxuu inoo sheegayaa DX-ka ama jihada dollarka si guud markii aan dhahno, inkastoo aysan ahayn all dollar jihadiisa inaysan perfect ahayn, laakiin jihada guud ama si guud ayaa waxaan uga heli karnaa DX-ka ayaan ka fiirin karnaa. Okay, isbuuca horeeto waxaan isla fiirinay DX-ka, aanan haysanay in qiimaha laga yaabo inuu descending-kan tago ama asoonan descending-ka tagin inuu qiimaha kor tagi karo. Okay, hadda still sidaan u jeedno DX-ka ma caddo, clear-na maahan structure-kiisa, waxaa inooga muuqda meesha inuu saaran yahay, laakiin waxaan rajeynaynaa in qiimaha uu tagi karo ilaa meeshaas. hadduu qiimaha ilaa meeshaas tago ayaa waxaan rajeynaynaa inuu qiimaha DX-ka kor isku soo qaadi doono. Marka waxaan dhihi karnaa dollar index-ka still jihadiisa clear ma ahan, laakiin waxaan rajeynaynaa area-daas double bottom-ka ah inuu tagi doono. area-daas ka sokane hadduu qiimaha uu ka laaban karaa, waayo hadda waxaan u jeednaa in qiimaha uu inverse sameeyey. haddana meeshan waxaa inoo muuqda double bottom yaraa muuqdo, laakiin anaga si guud waxaan isleenahay DX-ka in qiimaha ay ku qurux badan tahay inuu tago double bottom area-daas markuu qiimaha tagane waxaan rajeynaynaa dollarka inuu noqon doono strong. marka waxaan dhihi karnaa still dollarka jihadiisa clear ma ahan, laakiin waxaan rajeynaynaa in double bottom-kaas uu tagi karo. sida nooga muuqatana waxaan u jeednaa in qiimaha meeshan uu ku jiro descending-kaasna uu u muuqdo mid sii wadan karo. Okay, haddii aan gudubno lacagteena kale, lacagtaas waxay noqon doontaa Goldi. isbuuc horeeto waan isla analyse gareynay, jihada aan rabnay wuu gaaray. haddana waxaan sii fiirinaynaa fursadaha sida aan uga abuuri karno. time frame-ka weyn si guud waxaan u jeednaa impulse descending oo continuation ah. waxaan rajeynaynaa si guud qiimaha inuu kor loo qaadi doono Goldiga, laakiin waa long term waaye. Okay, si kale waxaan u jeednaa qiimaha impulse xoogan inuu sameeyey correction ama continuation inuu qiimaha ku jirano, danna qiimaha u badan yahay inuu meeshaas tago, danna meeshaas kor looga qaadi doono. waa long term ama time frame-ka weyn waxa inooga muuqdo. Okay, haddii aan tagno time frame-ka ku xigo oo 4-hour time frame maxaan inooga muuqdo. inta aanan gelin isbuuc horeeto waxaa inoo saarnaa continuation pattern-keena ama flag-geena meeshaas ayuu inoo saarnaa. qiimaha waxaan rajeynaynaa inuu meeshan ayuu joogo qiimaha markii aan analyse gareynaynay November 13. qiimaha meeshaas ayuu ku xirmay suuqa, wuxuu ku xirmay area-daas ayuu qiimaha ku xirmay. maadaama qiimaha uu area-dan ku xirmay, waxaan rajeynaynaa inuu double top sameysto. double top markuu soo sameystana qiimaha uu soo dhaco, flag-gaana uu macquul tahay inuu jabiyo, in uu xushmeeyana ay macquul tahay. waxaa dhacday sidii aan islahayn, qiimihii markuu double top soo sameystay wuxuu imaaday meeshii aan rabnay, qiimaha wuu imaaday. marka targetkeenii koowaad ayuu gaaray. time frame-ka 1 hour-ka ayaana aheeday meeshii fursadda aan kasoo abuurnay oo aan kusoo aragnay engulfing, kaasoo aan kusoo sheergareynay Telegramkeena. Okay, hadda marka maxaa inoo muuqdo. waxaa dhici kara marka hadda in flag-gi uu weynaado, uu large flag noqdo. laba qaabaa dhici karta Goldi. qaabka koowaad oo dhici karo waxaa waaye in kan continuation pattern-kan layska iloobo, qiimahana uu tago area-daas
uu xushmeeyo danna qiimaha uu soo dhaco ilaa uu meeshaas laga faa'iideysan karo fursad sell ah. waa possibility-ga ama macquulgalka koowaad ee dhici karo goldiga waa in double top oo soo samaystaa danna double topkaas oo ku samaystaa reversal pattern like ascending or rising wedge danna qiimaha oo meeshaas kasoo dhaco waa the first possible. next maxaa dhici kara marka labaad waxaa dhici karo sidaan u jeedno qiimaha wuxuu ku jiraa impulse correction, this correction qiimahana in si toos oo usoo dhaco meeshaasna uu qiimaha kasoo dhaco waa kan labaad waaye. marka qiimaha meesha kasoo dhacayana waxay noqonaysaa inaan separate sameyno aan kala saarno kanna oo noqdo correction gooni ah kanna oo noqdo another impulse. macnaha time frame-ka 1 hour markaa tagna ayaa si fiican u arkaynaa in qaabkaas iyadana ay macquul tahay. 1 hour markaa tagna waxaa ujeedaa kan separated ku sameynay waa kala saarnay, this impulse waa correction, nagastigan wuu dhamaaday, qiimaha marka wuxuu galay waa kala saarnay. marka waxaan ujeednaa qiimahan this impulse waaye, this correction soo maaha, qiimaha inuu meeshiisa ka dhaco markuu suuqa furmana aan ka raadino flag continuation ah, bill flag inaan ka raadino, taas ayaa macquula. macnaha in qiimaha continuation pattern-kan oo sidiisa u xushmeeyo oo meeshaasna ka dhaco waa another possible. waxaa kaloo macquula inuu sameysto double top yar inuu sameysto danna oo meeshaas ka dhaco. macnaha 3 shay aan sheegnay, 3daas oo kale ah qiimaha inuu double top soo sameysto, in qiimaha sidiisa hadda u dhaco, iyo in qiimaha maadaama impulse ay tahay intana aan inooga muuqdo corrective phase, in qiimaha mar kale oo sameysto double top, mini double top ah ama double top yar ah. soo marka si guud isbuucan waxaa 3daas qaab ayaa fursad sell ah looga abuuri karaa goldiga. si guudna sidaan ognahay maadaama uu ku jiro descending, haddii qiimaha uu imaado areadaas, hadduu qiimaha imaadane waxaa laga abuuri karaa buy opportunity ayaa laga abuuri karaa. soo marka meeshaas waxaan ugu baxnay lacagteeni koowaad oo goldiga aheeday. waxaan gelaynaa marka lacagteeni labaad oo ah euro New Zealand. haddii aan kasoo bilaabno time frame-ka daily time frame euro New Zealand, iyada marar badan ayaa fursad buy ah ka rajeynayna ka abuurno, laakiin qiimaha aad u soo dhacay. kow horta areadan ayaa ah areada koowaad oo double bottom area ah oo qiimaha uu kasoo bilowday ascending-ka ama impulse-ga weyn oo kasoo bilowday. areadaas ayaa ah areada kicitaanka weyn ama impulse-ga uu kasoo bilowday. soo marka waa areada ugu hooseyso oo qiimaha gaari karo oo double bottom-keena weyn waaye. okay, laakiin intoona qiimaha meeshaas gaarin waxaa macquula in qiimaha dhex laga celiyo. sidaan u jeedno qiimaha waxaan haysanaa impulse, this waa correction, waxaan aragnaa impulse kale. markuu impulse-aan sameysmay waxaan u jeednaa hadda inuu sameysmaayo wax la dhaho arc ama qaanso inuu sameysmaayo ama double bottom, mini double bottom ah. marka this area waxaa macquula marka in long term waxaa macquula maadaama impulse aan haysano intana uu hadda something arc sameysanayo in qiimihii uu sameysmo large flag inuu sameysmo, danna qiimihii lasoo dhammaystiro long term double bottom-ka lasoo dhammaystiro. laakiin intuusan flagaas weyn sameysan ayaa waxaan abuuri karnaa maadaama uu time frame-ku daily ahaa fursado yar oo ilaa meeshaas ayaan abuuri karnaa oo buy ah. sidee u abuureynaa marka time frame-ka kale haddii aan imaano 4 hour time frame haddaan imaano waxaa ujeednaa okay kan aan iska tirno ama iska qarino maadaama aan hadda isticmaaleynin. waxaan ujeednaa qiimaha wuxuu joogaa area double bottom ayuu ku dhow yahay. areadaas wuxuuna ku samaystay wax la dhaho reversal pattern oo descending ah ayuu ku samaystay. maadaama uu reversal pattern ku samaystay marka waxay u badan tahay inuu xushmeeyo areadaas double bottom-ka ah, inuu xushmeeyo ayay u badan tahay. time frame-ka 1 hour markaan imaanane waxaan sii cad qaababka aan u abuuri karno fursada buy-ga ah aan ka rajeynayno. waa in qiimaha uu imaadaa double bottom-kaas, markuu double bottom-kaas imaadane ani reversal pattern oo ku samaysto ayaa waxaan u abuuri karnaa buy opportunity. laakiin ilaa waxaan rajeynaynaa inuusan qiimaha dhaafi doonin ilaa areadaas maadaama aan rajeynayno time frame-ka daily-ga ah in qiimaha uu galo
large flag inuu qiimaha galo ama flag weyn inuu qiimaha galo maadaama rajeynayno this area ayaa ah areada ugu sareyso oo qiimaha gaari doono sida aan analyze gareynayno ama sida aan saadaalinayno. Okay, marka qaabkaas ayaa u abuuri karnaa in aan buy u abuurno, qaabkaas oo ah in qiimaha uu imaado double bottom kaas inuu imaado ama in uu soo dhameystiro descendingka. labadaas qaab markii uu sameeyo price action engulfing ama any price action markuu siiyana inaan fursadda meesha ka abuurno. marka adiga mar walba maxaa laga baahan yahay? mar walba waxaa laga baahan yahay inaad isticmaashid multiple time frame, multiple patterns kala duwan inaad isku isticmaashid, aadan kaliya hal ascending ama hal descending kaligiis ama hal pattern oo like double top ama double bottom kaligiis aadan isticmaalin si probability-ga uu bato. suuqan waxaan ognahay waa probability, ma ahan boqolkiiba boqol. wax macnaheed qofka markuu trade sameynayo ama maanta hadii aad analyzing sameyno like analyzing kan hadaan sameyno fursadii hadii imaado areas hadii wixii dhan dhameystirto macnaheeda ma ahan trade-kaas qofka markii uu dhameystirmo patterns-kaas badan in uu boqolkiiba boqol yahay ama uu u guuleyso doono. waa probability-gaasna waxay ku xiran tahay patterns-ka isticmaalaysid iyo deganaashada suuqa ka jirto. marka probability-gaaga haddii patterns-kaaga ay bataan waa in uu qiimahaas jihada rabto u dhaco ayay moo tahay ama ay ka badan tahay ama ay ka dhicin og tahay. soo marka mar walba waxaa laga baahan yahay adiga in aad mar walba aad xoogga saartid analyzing-ka, mar walbana aad xoogga saartid in trading plan-kaaga ama qorshaha kuu degsan in aad markasto ixtiraamtid. aadan dhihin trade-kan anigoo ii dhameystiran anigoo wixii dhan aan haystay qiimihii uu imaada double bottom-kii ascending-kii la dhameystiray price action-kii uu sameysmay ayuu trade-kaasna uu ii aadi waayay jihada aan u rabay. marka macnaheeda ma ahin any trade aad analyze gareysato jihada aad rabtid inuu ku aadayo. sidaan sheegnay waa probability. hadda marka probability-gaas waxaa dhici karto 10 trade ama 15 trade ama 8 trade oo isku xigto inay jihadeeda ku aadaan. waxaa si kala dhici karto in 5 trade 5 trade oo isku xigto in ay noqdaan stop loss ama jihadaadu ay cagsi ku noqdaan. soo marka haddii tusaale u soo qaadano probability of success iyo probability of failure, haddii aan tusaale soo qaadano head iyo maxaa la dhahaa tail ama xarash iyo madax haddii aan soo qaadano, maadaama xarash iyo madax ay laba yihiin probability ay ku dhici karaan waxaa waaye mid kasta waa 1 over 2. macnaha mid kasto haddii aan tuurno xarash iyo madaxana wuxuu haystaa 50 opportunity, xarashkana wuxuu haystaa 50 opportunity ama wuxuu ku dhici karaa boqolkiiba 50 aan dhihi karnaa. soo marka laakiin taas micnaheeda ma ahin haddii mid kasta oo haysto boqolkiiba 50 in aan tuurno maxaa la dhahaa tusaale 10 mar haddii aan tuurno in ay 5 kamida soo baxayso madax 5 kamida ay soo baxayso xarash micnaheeda maahan. laakiin waxaa dhici karto in 8 mar ay soo baxdo madax 2 marna ay soo baxdo maxaa la dhahaa xarash inay soo baxdo. haddii tusaale ka soo qaadno madax hadduu ku yahay profit ama in uu faa'iido ku yahay kan kale oo xarashkana uu ku yahay lose ama khasaaro, marka waxaa dhici karto in 8 mar aad faa'iidid 2 marna khasaartid. laakiin macnaheedu ma ahayn mar kasto 10 mar haddii aad trade gashid in 8 mar aad faa'iideysid 2 marna aad khasaareysid. wal cagsu waxaa dhici karto in 10kii mar aad trade gashay in 2 mar kamida kaliya aad faa'iidid 8 marna ay khasaarto. waxaa kaloo dhici karto in 8daas mar ay isku xigsata ayaa dhici karto. marka sababta suuqan marka loo sameeyay stop loss, sababta loo sameeyay risk management oo 1% khasaaradaada inay xanibtid ama khasaarada inay yareysid sababta loo dhahayo mar walba sababta loogu celcelinayo risk management waa qofna ma ogo waxa dhici doono. waxaanu waa probability mana ahan 100%. maadaama 100% aysan meesha oolin marka waa inaad isticmaashid risk management mar walbana ay fixed ahaato waxa aad khasaareysid, mar walbana aad istiraatiijiyadaada aad xoog saartid. tusaale haddaan kasoo qaado bishaan oo kale hadda fursado badan ma aysan jirin, haddana fursadaha aan qaadanay ama mostly waxaa arkaysaa in ay
inverse noqdaan soo marka micnaheeda maahin haddii inaad dhahdid waxbaa iga qaldan istaraatiijiyaddan waa ka tagaa samsinaa jiro waxyaabo badan inaa qofkii oo isku dardaro waa in uu joogteeyaa waxaa arkaysaa marka bil 20-30 trade aa qaadatid 20 kamida ama 80 tradeska aa qaadatay inay noqdaan profit ama jihada aad rabtid ay aadaan kuwa aad u yarna inay inverse kugu noqdaan waxaa kaloo dhici karto in ay equal noqdaan oo haddii aad qaadato 20 trade 10 trade ay inverse noqdaan 10 trade ay jihadaada aadaan something haddii aad isticmaalaysay ratio kala badan aad faa'iido joogi kartid marka mar walba waxaad joogtaysaa istaraatiijiyadaada mar walbana waxaad isku daydaa inaad isku isticmaashid patterns fara badan si probability-gaada u bato mar walbana waxaa fiican in qofka markuu trade galayo uu 1% uu risk gareeyo ama haddii uu 1% uusan risk gareyneynin in uu lacag isku mid risk gareeyo lacagtaas oo aan lacag aad u xoogan oo akoonka dhibaato u keenaysa aan ahayn marka maadaama probability uu yahay marka intaas ayaan ku dareynay haddii aan ka gudubno oo aan usoo laabano analyzingkeena oo falanqeynteena isbuuc haddii aan usoo laabano lacagteena kale waa Bond USD ayaan tegaynaa okay Bond USD marka maxaan ka rajaynaynaa haddii aan tagno time frame-ka daily time frame aan kasoo bilaabno Bond USD waxay ku jirtay lacagtii aan soo falanqeynay isbuuci horeeto ayay ka mid ahayd lacagii aan analyze gareynay iyadana si lamida still waa sidii impulse continue corrective phase waxaan rajaynaynaa next impulse ayaan rajaynaynaa okay maadaama intaas aan ka heesano time frame kaas hore ayaan waqti usoo gelinay waan sharaxnay haddana waqti kale ma sii siinayno kaliya isbuuci horeeto waxaan dhahnay waxaa dhici karta laba weji labadaas weji mid kamid ah ayaa hadda inoo dhacay wejigaas wuxuu kamid ahaa qiimaha waxaan joognay inta qiimaha wuxuu joogay area-daas waxaan rajaynaynaa in qiimaha meeshan uu ka dhici karo taas waxay ahayd phase-ka koowaad ama wejiga koowaad waxaa kaloo rajaynaynay qiimaha inuu tagi karo double top-ka haddii aad videogeen hore ku laabatana sidaas ayaa ku arkaysaa okay hadda maxaa dhacay qiimihii wuxuu tagay double top-ki area-da ayuu qiimihii tagay maadaama areas oo tagay marka waxaa waaye meeshaas ayaa ah meeshii aan ka abuuri karno fursadeena salka aan ka abuuri karno waxaa kaloo ujeedaa qiimaha markii uu tagay area double top wuxuu kusii tagay haddana another ascending nature oo kusii tagay ascendingkaas oo inoo cadeynayo in qiimaha buyers aysan jirin buyerska in lagu haayo cadaadis fara badan waxaadan ujeedaa candleska inay yihiin candles doji ah mar walba aan doji aragnane waxay tilmaamayaan in suuqaas ay buyers iyo sellers ay equal yihiin midkoodna uusan controlling okay haddii aan marka time frame-ka 1 hour time frame aan aadno 1 hour time frame-keena maxaa inooga muuqdo 1 hour time frame waxaan ujeednaa qiimaha wuxuu samaystay anada ascendingkaas ayaa inooga muuqdo oo ku samaysmay area double top marka waxaan rajaynaynaa sida hadda kan oo kale qiimaha inuu tagi doono area-daas markii uu tago area-daas markuu qiimihii tago inaa meeshaas ay tahay area-da aan ka abuuri karno fursad buy ah area-da kusoo abuureyno inay noqon doonto fursad sell ah sorry marka meeshaas ayaa ah area-da ugu fiican aan kasoo abuuri karno sell opportunity aan ka abuuri doono meeshaas ayaa ah meesha ugu qurux badan aan fursad sell ah ka abuuri karno marka qiimaha hadduu meeshaas tago area-da hadduu ku laabto micnaha inuu meeshaan ka tagayo micnaheeda maahan ilaa inta ugu tegi karaa si xoogan uu taaban karaa mar walba uu taabto double top-ka kuna samaysto price action asigoo xushmeynayo ascendingka waxaan ka abuuri karnaa fursad sell ah ayaan ka abuuri karnaa marka Bond USD asigna sidaas ayaan ka rajaynaynaa haddii aan ka gudubno lacagteena kale waa New Zealand USD iyadana waxay ka mid aheeday lacagtii isbuuca horeeto still iyada meel ma aysan tegin meeshii ayay joogtaa laakiin weli fursadii way taagan tahay marka maxaan ugu soo darnay analyzingkeena isbuuca labaad sababta ugu soo darnay waxaa waaye weli ma aysan khilaafin welina ma aysan dhicin laakiin waxay joogtaa meeshii ayaan ka rabnaa ayay joogtaa waxaan haysanaa impulse ascending nature oo reversal ah waxaa kaloo la joogaa double top area ayaa la joogaa qiimaha wuxuu joogaa area double top ayuu joogaa maadaama area double top joogo qiimaha marka waxay u badan tahay inuu dhici doono
for long term waxaan rajeynaynaa qiimaha inaan arki doono asigoo aad u soo dhacay ilaa qaybtaas u soo dhacay. Okay, haddii aan galno time frame-ka 4 hour maxaa inooga muuqdo? 4 hour maxaa inooga muuqdo? maxaan ka arkaynaa? wuxuu inoo sheegaa mar walba time frame-ka yar ayaan imaanaa. waxaa ka haysanaa anada ascending kale qiimaha waxaa ujeedaa 1 touch 2 touch next 3 touch ama markii saddexaad inuu qiimaha hadda u muuqdo mid taabtay inkastoosan toos u taaban. 4 hour markaa joogno waxaad ujeedaa qiimaha inuu samaystay price action kan waxaan u naqaanaa shooting star plus engulfing. waxaan ujeednaa price action aad u qurux badan inuu samaystay oo ah shooting star plus engulfing inuu qiimihii samaystay, haddana qiimaha inuu ku tagay ascending inuu kusii tagay sida hadda meesha inooga muuqday. so marka waxaan rajeynaynaa qiimaha inuu qiimaha areadaas ama bartiis oo kasoo dhici doono ayaan ka rajeynaynaa. time frame-ka marka hadda waxaa ujeedaa double topkii joogaa, ascending kala ku haysanaa, another ascending price action bin bar plus engulfing ayaan ku haysanaa. so marka waa high probability qiimaha inuu areas kasoo dhaco maadaama binba engulfingkaas ama price actionkaas oo samaystay suuqa oo xirmaayo. maxaa ka rajeynaynaa? okay, waxaan ka rajeynaynaa qaabab fara badan. qaababkaas waxaa ka mid ah qiimaha inuu corrective wato, danna uu soo dhammaystiro double topkaas, danna uu meeshiis ka soo dhaco ayaa macquula. waxaa kaloo macquula in ascendingkan hadda samaysmay oo mini ascendingka ah in la xushmeeyo maadaama 4 hour-ka aan ka haysano price action qiimaha markastoo dhaqaaqo oo na siiyo continuation pattern in qiimaha aan ka abuuri karno meeshaas inaan fursad sal ah ka abuuri doono. lacagteena ugu dambeyso waxay noqon doontaa New Zealand, waxay noqon doontaa euro yen. euro yen waxaa ka dambeyn doonta hal lacag. marka euro yen haddii aan isla fiirino waxaan ka bilaabaynaa time frame-ka daily time frame. daily time frame waxaan haysanaa si guud impulse, waxaan haysanaa mar qiimaha sidaa ujeedid impulse soo maah correction, qiimihii correctionka ayuu ku jiray, next impulse kale ayuu kusii dhex samaystay continuation pattern. so marka waxaan rajeynaynaa qiimaha inuu next impulse imaan doono. marka daily si guud waxaan ujeednaa qiimaha candles momentum xoogan iyo candles low momentum ah oo continuation pattern ah ama corrective structure inay samaysmeen. haddii aan imaano 4 hour si lamida waxaan u jeednaa 4 hour ayaan ku ekeen doonaa. qiimaha waxaan ujeednaa impulsigii oo cad descending for continuation. waxaan ujeednaa another double bottom inuu samaysmi karo. marka qiimaha haddii areas la imaado waxaa laga abuuri karaa buy opportunity. waxaa kaloo macquula in uu qiimaha soo dhaafo ilaa areadaas oo qiimaha descendingkiisa wato asigoo xushmeynayo descendingka hooso. okay, marka labadaas wiji ayaa jirto oo qiimaha uu abuuri karno buy opportunity. haddii time frame-ka aan imaano 1 hour-ka maxaa inooga sii muuqdo? 1 hour-ka sidaa ujeedid hadda wuxuu bilaabanaa another descending kale oo qiimaha waxaa ujeednaa descending kale ayuu qiimaha samaysanayaa. marka haddii qiimaha uu imaado areadaas oo price action ku sameeyo waxaan rajeynaynaa inaan ka abuuri karno buy opportunity, fursad macquul ah oo buy ah inay ka imaan doonto ayaan rajeynaynaa. step 1 marka meeshii aan ku xisaabtameyno waxay noqon doontaa areadaas double top uu noqon karto maadaama uu meeshu kasoo bilowday meeshuu ku dhammaaday maxaa la dhahaa impulsiga hore uu yahay. marka waxaan rajeynaynaa ilaa areadaas oo 200 oo bib ah inaan ka abuurno fursad. waa goorma? markii double bottomkaas la sameysto with price action. lacagteena ugu dambeyso waa New Zealand Swiss franc. waxaan ka bilaabaynaa time frame-ka daily-ga. daily maxaa inooga muuqdo? waxaa inooga muuqdo kow in uu meeshaas horta tahay meel macquula oo qiimaha la xushmeynayay. haddii aan si fiican u fiirino waxaan ujeednaa inta inay tahay impulse. inta si guud waa continuation ama corrective next impulse inuu samaysmay. next impulsegaas markuu samaysmay waxaa ujeedaa qiimaha inuu jebiyey laakiin xoogaa. laakiin markuu jebiyey waxaa ujeedaa qiimaha inuu samaystay another waxa la dhaho arc ama qaanso
kaasoo fake out ah ama qiimaha oo wax yar kor u jabiyey. Waxa uu samaystay marka mini double top ayuu samaystay. waxaa kaloo ujeedaa qiimaha markuu mini double top sameysanayay, qiimaha wuxuu meeshan ku samaystay another ascending oo qiimaha cadeynayo inuu qiimaha aado hoos inuu aado. marka area la joogo oo double top ah, qiimaha impulsiga dhamaad ku jiray iyo mini double top la samaystay. sidaa darteed time frame ka kale haddii aan aadno waxaan ka abuureynaa fursadaha sidaan u jeedno. okay, marka haddii aan sidaan fiirino maxaa inooga muuqdo, waxaa ujeedaa qiimaha wuxuu joogaa double top, haddana wuxuu ku samaystay ascending. soo marka ascendingkaas oo ku samaystay double topka oo dhammaystiran, haddii time frame-ka aan imaano 1 hour, inta aan 1 hour tegin maxaa inooga muuqda kan, waxaa ujeedaa double top uu joogaa qiimaha ascending dhammaystiran 1 2 3 plus double top plus engulfing ayuu qiimaha samaystay. waayo waxaa ujeedaa candlekaas in lagu sameeyey engulfing in lagu sameeyey, macnaha in candlekii hore oo samaysmay 4 hour labadii 4 hour ugu dambeysay in 4 hour ugu dambeeyay oo ku sameeyey engulfing. soo marka sidaa darteed meeshaas waxaa laga abuuri karaa fursad sal ah ayaan rajaynaynaa, ama qiimaha inuu meeshaas kasoo dhaco ayaan rajaynaynaa. marka 1 hour markaa imaano 1 hour maxaa inooga muuqdo, 1 hour waxaa inooga muuqdo marka in qiimihii uu impulse uu sameysanayo. marka sidee u abuuri karnaa selka, waxaa u abuuri karnaa laba qaab ah in qiimaha uu correction ku tago ama corrective phase uu mar kale ku laabto double topki, dan uu qiimaha meesha kasoo dhaco, ama sida ay u badan tahay oo ah in continuation oo meeshiisa ku sameysmo danna meeshaas aan ka salgareerno fursad. marka anyway waxaa dhigi karnaa New Zealand Swiss franc time frame-ka 1 hour-ka markii aan aragno bir flag ah waxaan ka abuuri doonaa insha Allah fursad sal ah, maadaama 4 hour-keena aan haysanay double top plus ascending dhammaystiran plus engulfing aan haysanay. intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa falanqeynteeni isbuucla aheeday. waa mar kale iyo falanqeyn kale. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.